mas-uuliyiinta ururka samafalka tawfiiq ee ka howlgala gobolka Nowdal waxa ay maanta soo bandhigeen wiil 17 jir ah kaasoo muddo fara badan ku xanuunsanaya gudaha magaalada Boorama isla markaana ka dhashay qoys danyar ah oo aan awoodin inay geeyaan cusbitaal lagu dabiibo wiilkoodan xanuunsanaya. waa kuwan mas-uuliyiinta ururka samafalka tawfiiq oo sharaxaya xanuunka haya wiilkan 17 jirka ah ee lagu magacaabo Cabdisamed Axmed Indhanuur. waxaan maanta la joognaa Ree Axmed Indhanuur. Ree Axmed Indhanuur waa markii uu horeysay ee aan TV ka soo duubno sababta nagu kaliftayna adoonka yareed arkaysaan oo la yiraahdo Cabdisamed Axmed Indhanuur waxay noo sheegtay hooyadii 17 sano inuu jiro. shaashada ayaad ka arki doontaan xaaladda uu ku jiro. waxa kale oo nagu kalifay inaan duubno maanta buulkii ay ku noolaayeen xaaska dhami oo dabaylihii iyo roobkii dhulka ka da'ay ee nimcada ahaa iyaga ay ka dumiyeen awood ay ku dhistaan iyo awood ay wax ku qabsadaan aanay haysanin. nolosha uu Cabdisamed ku jirana waxaan Ilaahay uga weydiinaynaa isaga qiil bixiya inuu Ilaahay nolol dhaanto ugu bedelo. 17 sano waxay hooyadii sheegtay inaanu ilmaha dhashay garaadkii ilmaha dhashay uu Cabdisamed u leeyahay. waxa la sheegay Cabdisamed ama imikadan baa anagu aanu taagnayn gaajo yar haduu dareemo inuu jirkiisa cunayo. marka waxaan leenahay Ilaahay dartii ha loogu soo naxariisto, Ilaahay dartii ha loogu soo gargaaro. hooyo waliba waxay jeceshahay ilmaheedu inuu caafimaad qabo, inuu madrasad u dhigto, inuu jaamacad uga baxo, inuu Ilaahay caabudo. laakiin Ilaahay qadaradiisa ayay ku timid Cabdisamed inuu caynka u ekaado. meeshaana uu ku jiro jiingada aad arkaysaan ee lagu sawiray meel walba Cabdisamed way ka sartay, afkay ka sartay, lugahay ka sartay, gacmahay ka sartay. silsilad yar buu Cabdi ku xidhan yahay oo lugtiisii goysay. waxaan leenahay qoortiisa imika hadii uu nayeelayo oo idin tusi lahayn way saran tahay oo jiingadaha saasaray. waxaan idin leenahay walaalahayo Ilaahay dartiisa Ilaahay inoogu naxariisto, cirka inooga naxariisto carshiga uu fadhiyo, inaguna waa inaan u naxariisano. maanta waxaan la joognaa walaashay Hibo oo hore shaashada uga aragteen oo wiil yari ka xanuunsanayay. wiilkiina geysay Adiis lacagtii aad u soo dirteen. Ilaahay lahana qaatay wiilkii yaraa. waxaan dhamaanba ugu bishaareynaa ummadii walaashay Hibo wax soo tartay ee ilmaha yar fadligiisa ugu soo dirtay lacag. walaashay Hibo lacagtii waxa ay ku samaysay oo anaguna maanta aad ugu faraxsanahay inay iyadu idin sharaxi doontay. lacagtiina markuu ilmihii yaraa dhintay gurigaasaan ku dhistay kuna faa'iideystay alxamdulillah aan kura kaga baxay baahi badan kaga baxay. marka waxaan leeyahay Ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro dhammaantoodba ku in yar soo diray ku in badan soo diray Allah ka jisaysiiyo. Cabdi Fataax Axmed, Somali Channel, magaalada Boorama.